بسم الله الرحمن الرحيم ولو وحين كودا جرنا براشada maadada xisaabta fasalka 12aad maantana waxaan qaadanaynaa insha Allah logic maangal halka casharada kala socotaana waa channel YouTube-ka aqoon kororsi xisaab casharka koowaad ee maanta waxa uu noqonayaa compound statement in connectives marka la joogo chapterka logic-ga waxyaabaha wax isku xir ayaa waxa loo yaqaanaa compound statement in connectives marka intaan meesha noo saaran calaamadaha connectives-ka ayaan ku shaqeyn doonaa insha Allah chapterkan intaan ku wada jirno connective-ka haddii aan ku hormar marka inta waxaa noo qoran connective names symbol complex preposition iyo read as lamarko not ayaa noo qoran not namekiisa waxaa la yiraahdaa marka la joogo chapterkan negation sambalkiisa waa ta meesha noo saaran sidoo kale complex preposition wuxuu noqon leeyahay waa negation p negation b read as waxaan loo aqriyaa not b kan labaadna waa an oo ah conjunction conjunction macnaheedu waxay tahay isku xire an conjunction isku xire sambalkeedu waxa uu noqonayaa calaamada meesha noo saaran complex preposition kan waa kan b and q waxaan loo aqriyaa read as b and q marka conjunction ka cagsigeedu waxaan haysanaa disjunction lambarka saddexaad waxay noo qoran or namekeedu waa disjunction sambalkeedu waa calaamada meesha noo saaran oo or u taagan complex preposition keedu waa b or q read as waxaan loo aqriyaa b or q lambarka afraad waxaan haysanaa if then namekeedu waa conditional ama waxaa dhihi kartaa implication sambalkeedu waa tan calaamadan loo soo gaabiyaa complex preposition keeduna waa kan waxaa leeyahay b if then q read as waxaan loo aqriyaa b if then q lambarka u dambeeyo oo shanaad waxaa la yiraahdaa if and only if namekay leedahayna waa b conditional ama waxaa dhihi kartaa double implication calaamada loo soo gaabiyo sambalkeedana waa tan sambalkeedana waa kan meesha noo saaran ee complex preposition keedana waxaa leeyahay b if and only if q read as waxaan loo aqriyaa b if and only if q lamarko waxaan ka bilaabaynaa negation diidmo let b stands for b ka soo qaad b inay u taagan tahay for a given statement ora ama statement ama jumlad lagu siiyay dan kadib negation b read not waxaa loo aqriyaa not b ayaa loo aqriyaa represents in the logical opposite of b ayadoo markaas ay u taagan tahay cagsiga b when b is a true markii b ay tahay run then negation b is false b markay tahay true negation b wuxuu noqonayaa false and first cagsigeedana waa la mid true table kan fiirino the true table for negation of the preposition labadan marka meesha noo saaran b iyo waxaan haysanaa negation b inta waxaan ku soo sheegay when b is true b markay true ay tahay negation b wuxuu noqonayaa false b hadda waxaan haystaa true negation b ga muxuu noqon doonaa marka f ayuu noqon doonaa cagsigeedana waa la mid meesha aan lahayo ah and first cagsigeedana waa la mid marka haddii b aad haystid false haddii b ay tahay cagsigeeda marka negation b wuxuu noqonayaa true ayuu noqonayaa conjunction isku xire if a b and q are statement haddii b iyo q ay yihiin statement lagu siiyay then the statement b and q statementiga b iyo q read waxaa loo aqriyaa b and q is a true only waxay run tahay oo kaliya when both b and q markii labadaba b iyo q labadoodaba are true ee run ay yihiin and otherwise is a false kuwa kalena yihiin kuwa been ah si fudud b iyo q hal mar ay waxay noqdaan oo kaliya run waa goorma
markii labadoodaba ay yihiin run ayaa waxaa la helaa run inta kale oo soo hartine waa been fiir marka b waxaan haystaa t q waxaan haystaa t laba t b haddii noqoto t q-na hadday noqoto t waxaan leeyahay b and q waxay noqonaysaa t hore ayaan kusoo sheegay haddii labadooda hal mar ayay conjunctionka marka la joogo hal mar ayaa t ah inta kalena waa gaalisa waa goorma waa markii b iyo q ay yihiin t markay true yihiin b and q waa true b waxaan haystaa t q-na waxaan haystaa f waxaa ii soo baxayo f b waxaan haystaa f q-na waxaan haystaa t waxaa ii soo baxaya f b waxaan haystaa f q-na waxaan haystaa f waxaa ii soo baxaya f marka la joogo conjunctionka xeerkiisu waxay tahay hal mar oo kaliya ayaa run ah waa goorma marka b iyo q labadoodaba ay yihiin kuwa run ah hadda waa halkaa mar oo kaliya b-da ayaa true ah q-dana waa true kadibna b and q waxay noqonaysaa true inta kalena waa been taas yourself isku day inaad ka shaqayso insha Allah conjunction ayaa lagu siiyay b and q halkaas ayaan kusoo koobayaa casharkii hordhaca ahaa ee maadada xisaabta fasalka 12aad ee ahaa logic. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.